بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعلى ونكسن دمان وضع سواليد قوب كستا iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta iyo war degdeg ah shirac culus iyo jaajuuskii Abdi Iftiin oo qabiilka uu sheeganayo iyo reerka uu sheeganayo iyo waxaanu meesha ku joogaa intuba ay been noqdeen. waxaan ka codsanayaa barnaamijka uu soo gaaro إن أسير قال صديق سلاد كوجو ترى وصل تكبر هنا قال هذيك النبي صلى اللهم صل على سيدنا محمد. تشوس بوي أيان حكتي سي أو لما يسترن صاهلاي ماشى وكل نولا عدة ولا نولا نيروبي أنتو تشوجي شقوي كيو قبتشري قبيل كأورشجنا يا آنو أهين سيده دبا إيه هو يدي هالكا يكون نشاي إيه قبيل كأيت هاي يعني كان عدو شقيو شقنا المحل كوكب بلعبي مسا أفريقيا كلايمي برنامج كاساسول تاعنا وحكوا واجوا برنامج كنا سيشر جرسيد أنا وحكوا واجوا إنهم كوسو تبيو أو كوسو جرسيو وهاي عبد إفتين نكلم مع بحي نكلم نيروبي بتشوج شري نيروبي مركي وتشوجي وحوتشاتشوس وها أو لا شقين شري إذا عثر قلبيت كليهين أو خاصة الدلك فرانسيس كلاجليهاي أو global investigation اللي يرادو oo waxa weeye arimaha dadka Soomaalida ah iyo dadka Islaamka ay arimahooda ururisa oo daba gasha oo faaqida oo falanqaysa oo rogrogta ayuu horta ninkan u shaqeyn jiray halkaas wuxuu ka gudbin jiray xogta iyo sirta dadka Kenya ku nool dadka Soomaaliya ku nool sida loogu nool yahay waxa ay qabtaan dadkani waxay yihiin waxa la yiri ninba bari ri lagu qabtay ri isagoo fuushan bali markaas ali war maxaa rida ku geeyay imee wasay imee ila goormaan hawshan ku jiray buu yiri haatan Abdi Jaajuus boy imee hawshan soo waday imee ila iyo goormaan way waa ila Nairobi shaqadaas uu ninkaas hayn jiray idaacadaas uu shaqayn jiray xumaanta iyo ceebta iyo fawaaxishta iyo gulnimada iyo sharaf darrada iyo nacaybka inta xunbu umada Soomaaliyeed ka gudbin jiray isagoo shaqadiisa haysta ayaa waxa heshay oo la kulantay naagdiyaado Lisa Shirin naagdiyaado ayaa ninkan la kulantay waana naagti ka dambeysay ninkan inuu Mareykanka yimaado naagta saa waxay ka yaabtay firfircoonidiisa iyo shaqadu ninkan qabanayo iyo sidoo uu la xaadsanayo iyo sidoo umada Soomaaliyeed ula dagaalamay xataa kan waa bakiin aan ficilaha lottery wax la yiraahdo ninkan lagu soo qaaday haba yaraatay ma jirto waa been shilinta si waa barnaamijku ku soo galay waxa weeye media ku soo galay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Afrika ku nool uu ku wareeriyay ninkan lottery kuma iman ninkan wuxuu ku yimi box baa lagu ritay sanduuq baa lagu soo ritay jaajuus inuu yahay anfacaya maanta oo kale inuu gaalada anfacaya bay naagta waxa weeye Lisa Shirin ogeyd waxa lagu soo ritay sanduuq baa lagu soo ritay waa la soo qaaday kadibna wuxuu ka shaqo galay kaniisad la yiraahdo CWS marka la soo gaabiyo ayuu ka shaqo galay kaniisada marka waa kaniisada looga qaaday wareysyada maartay umada Soomaaliyeed ku aflagaadeynayo oo diinta ku caayo oo Ilaahay ku aflagaadeynayo oo ambiyada ku aflagaadeynayo oo Ilaahay ambiyadu maxay rag u noqdaan maxay naaga u noqon waayeen Ilaahay maxaa nin loogu wacaa mar uu meel kaniisada taagan yahay maartay qolo khudbadayn leeyahay malcaamada iyo diinta Quraanka iyo sida wax la soo baro iyo macallimiinta caayo iyo diinta caayo iyo Quraanka caayo maaragtay shaqooyinkaas uu ninkaas haystay shaqadani waa intii aanu Nairobi ka soo bixin iyo intii uu Mareykanka joogay labada waa ka shaqeynay bal waxa ila daawataan isagoo Afrika jooga oo afku dheer yahay eegay oo aad moodo dawaca sumaysan oo kaniisadii CW dharkeedii gashan halka shaabadu ugu dhigan tahay oo khudbadaynaya marka Nairobi buu joogaa Soomaaliya maqal weeye waa marka la soo qaadayo badan waa dambaysa maanta dhagaxa inta ku leekan doonay horta barinta la dhigiso. Hello everyone, thanks for joining us this evening. Church World Service bariyada marka Nairobi buu joogaa calaamado talka u saaran kaniisadaas uu ka shaqo galay lacag intee la qaataa ninkani oo kaniisada ka qaata kaniisada muxuu u qaabilsan yahay kaniisada ninkan wuxuu u qaabilsan yahay communication specialist waa arimaha khaaska ah iyo xiriirada khaaska ah
isbishaalka ah buu ninkan horta qaabilsan yahay maxaa ka mid ah marka shaqooyinka loo diray dhalinyarada Soomaaliyeed inuu soo dumo inuu waxa weeye diinta u bahlageliyo dhaqan iyo Soomaalinimo iyo dad Mareykan joogo meel dhow ka hadlaysan ilaahay ma jiro inuu yiraahdo communication specialist wa arrimaha khaaska ah ee khusuusiga ah ee qamshaxda ee alla koodnimada ah ee baayo hoogiya balanbalka buu qaabilsan yahay mushaarata la ku qaataa ninka sanadkii celcelis ahaan $7,000 ayuu mushaaraan u qaataa waa sanadkii salariga sanadkiisu wuxuu u dhaxayaa 70 ilaa iyo 50 buu u dhaxayaa lacagta mushaar ahaan buu ugu qaataa kaniisadaas uu ka shaqeeyaa markuu ilaahay aflagaadini anbiyada caayay macallimiinta iyo quraanka caayay markii dambana waxa la yiri buug baan ku qoraynaa buug isagu ma qorin niliyada Alexander Max ayaa buugan qoray oo kaniisadu ku maalgelisay ninkani waa khasiis weyn way waa khasiis baan ku yiri kaniisadaha kuwa fadhiya khasiisiinta uu kamid yahay waliba arrimo khaas ah isagu waxa way ka shaqeeyaa mana aha ilaa iyo maalinkii waxa weeye Soomaaliya ka soo baxay ilaa iyo maanta buu jaajuusnimo iyo alla koodnimo iyo diinacay iyo ilaah aflagaadeyn iyo nacayb islaam waligiisu ku jiray wuxuu yiri inkastoo durduurto dooxyada muquuro ku dabaasho wabiyada ama raacadaad weyn dad hore wuxuu yiri abidkii ma daahira mana daayo waligi waxa diintu necab tahay doofaar waa halkiisii jaajuus boy shaqadan waa ku soo mabay isagoo yar buu soo bilaabay Afrika ayuu ka soo bilaabay ayaar mood caana boora kaniisada buuga maalgelisay Alexander Max baa buuga qoray waa nin qoraa baladeegay buugan uu leeyahay waa la iibsado intaas oo milyan baan iibsaday 32,000 bal faa'iido xalaale iyo wax ka jira ma jiraan Amazon waa ka eegi kartaan eegay buugaas cid iibsatay ma jirto dadku damiir bay leeyihiin waa bini aadan qofku si kasto gaal u yahay nin hooyadii caayaya qof waliba waa ka naxaya midda kale qofka jaajuuska ee dulliga ilaahayna ma jecla umadiisuna ma jecla gaal iyo islaam nin dadkii uu ka dhashay iyo deegaanku ka yimi aflagaadeynaya caaye warina dooni ma inina dhageysan maayo buugu sheegayaan horta wax allaali wax ka jira iyo waxba la iibsaday iyo waxba faa'iido iyo guri baan gatay midna ma jiro ninkaasuna la degay waana saaxiib baladeegi guri uu iibsaday hantu haysta midna ma jiro haddaba ninkan qabiilkiisu waayo waxa la yiri waaba waxa jiray nin loo jeedo salamadle oo reer Burco ahaa tuug buu ahaa marka salamadlow caan baa tahay nin kasto miyiga ka yimaada oo waxa weeye xoolo ku qabsada aniga iska leh afar marxaad furtaan waa la socotaa maalinki dambe ba wanka marka la tumo oo waxa weeye la dhufaano wuxuu noqdaa lax buu ekaada oday wan wata buu arkay rasuul wallahi kaasa la xwataan maanta ku qabsado salamadna yeedo waa tuug caana afarta iyo afku ku qaada marka soo oday ku qabsado laxdaydii aniga iska afartii oo geedaha ka soo hadlay waa runtii salamadna isaga war malihid dadkii waa soo yaa warninka miskiinka ma aniga iska afartii oo marxaad furta wuxuu maxaa wata jeelay lax weeye Allah isaga afartii saylada joogtay tuugada isku marxaad furta wankii intu saaxiniya oo qabto biilaadeer waa wan baa laga yiri laxma he waa wan baa laga yiri biil haatan dadkii afka abuurta ka sideynay daarood baa baxsanaya hebel waa daarood hebel kale waa daarood ninkan daarood baa baxsanaya waa raxan weyn miskiina waa eelay qabiil baa loogu faanaya haddaba ninkii eelay ma he waa gari baa laga yiri ninkani waa nin daarooda oo kabla laxa oo koomba oo gari koomba way qabiilkan uu sheeganaya raxan weynna hooyadiisa raxan weyn oo eelay ah ninka walaalihiisa la yaqaana nuur iftiin nin la yiraahdo baa la dhashay iyo gabar kale oo Saacadiye iftiin baa la Xaliimo iftiin laba qof baa ninkan la dhashay waa wiil iyo gabadh wiilka nuur iftiin baa la yiraahdaa gabadhana waxaan u malaynayaa kuma dambaabay in Saacadiye iftiin la yiraahdo waa nin gari kombo ilma adeerayaal boodariyo foosta lagu soo riixday hadhiine ninku waa nin gari komba
dadkii afka abuur waxaan arkay candha cala sow oo dhaligi kala qaaday oo qarmuunkii media laga fariisan waayay daarood baa baxsanaya ilaahan Umar Khaliisi bay taageertay hebel kale baxsan isagu mar allaala iyo markuu qof arko dhaqaaqaya ilaa waa nin cuqdad qaba oo awoowayaashii sagaal awoowahay eegay daarood baa dilay biyo sagaal awoowahay mid laba marxaan miyaa dilay biyo toddobana ma jeerteen baa dilay biyo cuqdad buu qabaa isagu la yaabi maayo waa nin xanuunsanaya laakiin waxaan arkay kuwa badan oo magacooda aan qori karino daarood intay maqleen saacadu daarood kaga fadhiisatay wixii daarood waxa weeye watana waa negative wixii daarood watana daarood ka soo jeena waa positive warinkani daaroodna ma yaqaan raxan weynna ma yaqaan hawiyana ma yaqaan Soomaaliyo dhan buu aflagaaday Soomaaliyo dhan buu caayay Soomaaliyo dhan buu taajuusay allihii uu way ninkani caayay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam buu caayay maanta soo nin gari koomba ma cid baa yaxta waa in adeerkay haddana wallaahi billaahi tallahi baan warigi ula jirsanay waa nin gari koomba ana nin harti koomba baan hay walaalo wada dhashay 10 oday ma kala soconaan iyo gari koombe baladeegi waa in adeerkay laakiin in adeerkay alla kood ah oo daalin ah oo ilaahay aflagaaday oo nabi maxamed iyo anbiyada alayhi salaatu wasalaam aflagaaday oo Soomaali waxa weeye baabiyay oo dhaqankan waligii lahaa oo hooyadii caayay eegay meel naga soo galo ninkaasi iyo wax allaaliyo waxaan ku taageerayaa midna ma jirto hadaad u haysteen dadkiina xanuunkan ilaahay baa idinka biin kara xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunka daaroodka liyaada wuxuu ka mid yahay xanuunada bini'aadamka ku dhaca buu ka mid yahay qofka hadaad tire barbal qofka aad tahay kugu nacay ka war hadaad iimaan tahay iimaan xaramka hadaad tujisid oo aad nin daarooda tahay eegay mar allaali markuu qofku ku ogaado inaad daaro tahay qofkiis bedelayaaba sida inaad aabiyo hooyadii aad meel ku wada guuracday laakiin de wuxuu yiri asallahi caalamuna usbana masafarba waxba wuxuu yiri quraanshadu waa qaran oo waa qaran qabiiliya wax sa qiimaheed baay waxba waanay qaban karin ayuuba turaabka ka badan buu tirana loo daayay hadana tukaha boobaya toban hal weeyana maxaad aniga iga tigsataa tiir biraan hay magacan daaroodka la yiraahdo anoon cidna aflagaadeyn cidna aan caayin magacan daaroodka la yiraahdo isaga mashquulkiisa iyo waxa weeye burhaantiisa iyo burjigiisa iyo qamshaxdiisa iyo xiniyihiisa iyo wax walba isaga buuq isaga ugu filan reerkani buuq iyaga isugu filan baan ku dadka kale ma arkaanba wuxuu yiri yoonistuugo jiray habar ba iska hawle heelada inoo tumo yiri heelada waraariga waa lagu jiraa waladay waraariga tuuga ku jirta tulay war habar ba iska hawle heelada inoo tuma laxda dharan ha dhaafina laba jir waa lugu iyo bari saddex jir waa siniin waal laba gura laxda dharan ha dhaafina nimankan daaroodkani iyaga gudahoodii iskala shabaxtamay umada ma arkaan way ka saay daarood weeye daarood wey ninkan waa daarood kan xilahaydaya iyo ku farxi lahaydayaaba ninkani waa nin gari koomba oo koomba kablalaha oo daarood Ismaaciila haye hadda yaa naga celinay marka hadaanu suqaarsano iyo hadaanu jarjarno iyo hadaanu shiilano iyo hadaanu solay ka dhigno iyo hadaanu muufada ku gurno balka waraade hadda sooma hiilin karo yaa iga afweyn waa nin gari koomba idinku waxba u qaadi weydeen waxba u tari weydeen dibadaanu soo dhignay ceebtiisaanu dibada u soo saarnay inuu nahaab yahay baanu keenay diinta ilaahay inuu caayay beenaale yahay waxba aanu haysan maxaa ka difaacdeen 360 digriida saacada saa u wareejiyo waxaan kaaga dhigi karaa Subirian man kaaga dhigi karaa Subirian laakiin qof islaam ma baan haydee qabiyaaladuna heerka aniga igmay gaadhin qofka waxa li gaalka dil gartiisana si qofku in adeerka haduu yahay oo diinta wax ka sheego ilaahay wax ka sheego waxba kuma aha ilaahay diintu waaba meel fog qofka Soomaali jaajuusa baan wax ku ahayn haye kuwi baroranay meeye waa nin gari koomba hooyadiina waa raacaweyn waa elay hooyadiisu ku abtirsaday waanu dhahaa Naali Axmed baan hay inta ka soo fariisto nin waariyahan Naali Axmed baan hay kasaan waxa bas dhaamin ba Axmed Isii baladeegi hooyadiisu ku abtirsaday waa elay hooyadiisa elaya isaguna nin gari koomba laakiin waa jaajuus mujrim ah oo ilaahay ka furtay
oo waxa weeye daalin ah oo aan cidna dhaafin cidna hooyadii dhashay buu caay cid wax u yahay ma jirto walaa gari baan wax u ahayn walaa daarood baan wax u ahayn walaa Soomaali baan wax u ahayn cid allaale cid wax u yahay ma jirto kuwii daarood nacaybka ku taageerayo warinku waa daarood isaga laftigiisa daarooda dib u dega marka مش فكرتني دب دقة والخير يا بركة دينا جريا وبرنامج جديد في تحقيقك ولاك افتح بولي له ترى تدوم كل بدون راح تكتك ورسل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته